hay-adda wadaniga ee Gaafa ayaa raashin deeqa oo mucaawinad gaarsiisay deegaanada galbeedka iyo bariga ee xeebaha gobolka Saaxil oo ay beeraban ka taagnaayeen muddooyinkii u dambeeyay qayladhaanina ka soo yeedhisay ilaa 180 mitir tan oo raashinka noocyadiisa kala duwan ay gaarsiisay hay-adda wadaniga ee Gaafo. agaasimaha fulinta ee hay-adda Gaafo Axmed Cumar Xirsi Ergaabo ayaa tilmaamay in raashinkaasi uu ka dambeeyay baaqi madaxweynuhu u diray hay-adaha caalamiga ee inay ka jawaabaan abaaraha ka jira dalkani Somaliland. waxaanu tilmaamay in ay iska kaashadeen hay-adda caalamiga ee WFP isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi 14 goobood oo ka gobolka Saaxil raashinka waxa ku deeqay hay'adda WFP waxaana qayminteeda mas'uulka ah oo gaarsiinta dadka loogu talagalay hay'adda wadaniga Gaafo waxa uu jawaab u yahay codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu jeediyay beesha caalamka ee ku wajahnaa abaaraha ay ku habsaday qaar ka mid ah gobolada Saaxil iyo Salel iyo deegaanada la gaarsiiyay raashinkan ayaa waxa ka mid ah degmooyinka Berbera, Bulaxaar iyo waliba Laasciile. 14 goobood oo hoos yimaada ayaa laga qaybiyay raashinkani waxaana dadka raashinkaasi la gaarsiiyay si weyn ugu mahadnaqeen hay'adda wadaniga ee Gaafo. sidoo kalena isuduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saaxil Cabdalle Ismaaciil Yaasiin ayaa isaguna si weyn ugu mahadnaqay hay'adda wadaniga ee Gaafo soo dhaweeyay raashinkaasi. Cabdikariim Saciid Saalax, telefishinka caalamiga ee Home Cable TV, Berbera.